السلام عليكم صاحب يال maanta waxaan ka sheekeynaynaa qisadii Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam waana qofkii ugu sharafta badnaa ugu karaamada badnaa bini aadinka ka hor intaanan bilaabin qisadiisa nabiga waxaa jira laba dhacdo oo muhiim ah oo nabiga ka horeeyay ayagaana marka hore isla arkeena nabiga awowgiisa Abdul Muttalib waxa uu hogaamin jiray reer Quraysh waxa uu arkay ceelkii Zamzam oo muddo aasnaa isagoo biyihii dib u soo celiyay waxa uu ka baqay in ay Quraysh kala wareegto ceelka markaasi nabiga awowgiisa waxa uu lahaa 3 caruur ah allana waxa uu nadar kula galay in 10 wiil uu siiyo hadii uu siiyo alle uu gooric doono mid kamid ah wiilashiisa alle waxa uu siiyay 10kii wiil markii ay u koreen nabiga awowgiisa wiilashii waxa uu go'aansaday nabiga awowgiisa in uu oofiyo nadarkii isagoo wiilashiisa qortuur u sameeyay waxaana ku soo baxay nabiga aabihiisa Abdullaahi si uu nabiga awowgiisa u goorico wiilkiisa waa uu soo kaxiyay laakiin carabtii ma ka degneed ayaa isku dayay in ay ka celiyaan balse waa uu ka diiday waxa ay u sheegeen xal kale iyagoo soo kaxiyay oo u geeyay naag faaliso ah naagtii waxa ay ku tiri nabiga awowgiisa waxaad keentaa 11 halaad waxaadna keentaa Abdullaahi midkii uu u soo baxo qortuurka ayaa la gooracayaa mar walba oo qortuurka la sameeyo waxa uu soo baxay nabiga aabihiisa naagtii waxa ay ku dhahaysay nabiga awowgiisa mar walba oo qortuurka uu ku soo baxo nabiga aabihiisa geela 10 halaad ku soo dar ilaa laga gaaray 100 halaad markii 100 halaad la gaarsiiyay alle waxa uu ku furtay nabiga aabihiisa 100kii neef waxa uu u soo baxay qortuurkii 100kii neef ee geela ahaa taasina waxay ahayd dhacdadii koowaad dhacdada labaad waxa ay ahayd dhacdadii maroodiga waxa jiray nin heesta Yemen oo la yiraahdo Abraha al-Habashi waxa uu arkay sida carabta ay u weeneeyaan Kacbada kadib ayuu Yemen ka dhisay kaniisad dahab ka samaysan isagoo raba in ay carabta ka soo leexdaan Kacbada in kamid ah ku reer baadiyaha oo aha carab ayaa intuu maqlay sheekadii kadib ku saxrooday kaniisadii kadib sheekadii waxa loo sheegay Abraha kadib Abraha intuu xanaaqay ayuu go'aansaday in uu soo dumin doono Kacbada Abraha isagoo ciidan iyo maroodiyaal soo kaxistay kadib meel Makka u dhow ayuu degay Abraha waxa uu yiri madaxa reer Quraysh hal ii keeno waxaan u baahanahay in aan wada fariisano madaxa reer Quraysh waxa uu ahaa Abdul Muttalib nabiga awowgiisa kadib waxa wada fariistay Abraha iyo nabiga awowgiisa waxaana la yiri nabiga awowgiisa maxaad iga dalban lahayd nabiga awowgiisa waxa uu yiri 100kii neef ee geela ee aad iga qabsatay ii soo daa Abraha inta uu yaabay uu xanaaqay ayuu yiri Kacbada in aan dumiyo ayaan u socdaa adna 200 oo neef oo geel ah ayaad ka hadlaysaa nabiga awowgiisa waxa uu yiri geela aniga ayaa iskale Kacbadana Allah ayaa iskale isagaana ka ilaalsan doono kadib Abraha waxa uu siiyay nabiga awowgiisa geeliisa wuuna iska soo fasaxay nabiga awowgiisa markii uu soo laabtay Quraysh waxa uu ku amray inay isaga baxaan Makka dadkii markii ay baxeen ayuu Kacbada tagay nabiga awowgiisa isagoo yiri Ilaahayow aniga geeleygii waan soo dhacsaday adna Kacbadaada ilaasho Abraha waxa uu damcay in uu Kacbada u soo dhaqaaqo isaga iyo ciidankiisa allana waxa uu u soo diray shimbiro kuwaas oo wato dhagaxaan ciidankii Abraha alle meesha ayuu ku baabi'iyay Abraha isagoo oo dhaabac ah ayuu u carray dhanka Yemen meeshii ayuu ku dhintay waana sanadii 570 ilaa 571 waxaana markaasi dhashay nabiga sallallahu alayhi wasallam Maxamed bin Abdullah bin Abdul Muttalib hooyadiisana waa Aamina bint Wahab waxaan mar kale idin leeyahay ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam waa rasuulkii ugu dambeeyay ee Allah soo diray nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee qisada noloshiisa waa mid kamid ah sheekooyinka ugu saameynta badan taariikhda islaamka iyo nolosha bini aadamka oo dhan waana tusaale aad muhiim u ah oo ku saabsan dhanka iyo cibaadada samirka adkeysiga iyo hanuunka waxa uuna ahaa nabi iyo rasuul oo loo soo diray dadka bini aadamka oo dhan si uu ugu yeero tawxiidka iyo in la raaco jidka xaqa ah Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam waxa uu ku dhashay magaalada Makka sanadkii 570kii miilaadiga waana sanadkii loo yaqaanay sanadkii maroodiga maadaama ay ahayd sanadkii Abraha uu damcay in uu dumiyo Kacbada aabihiisa waxa uu geeriyooday ka hor intaan la dhalin nabiga hooyadiisna waxa ay geeriyootay markuu gaaray 6 sano waxa soo koriyay awowgiisa Abdul Muttalib kadib markuu 8 sano gaarayna waxa dhintay awowgiisa kadib hadana nabiga waxa kafaaladiisa la wareegay adeerkiis Abu Lahab nabiga waxa uu ahaa mid leh aqli daacadnimo iyo dulqaad isagoo lagu naaneysi jir saadiqul amiin oo micnaheedu yahay kii aaminka ahaa wuxuuna ahaa mid ka fogaada dhaqamada xunxun ee caadada u ahaa dadka Makka sida caabudida sanamyada iyo in ay cabaan qamrada nabiga markuu gaaray 15 sano waxa uu bilaabay in uu shaqeysto isagoo noqday eriraac kadib haddana 20 jir markuu noqday waxa uu bilaabay in uu ku biiro dhanka iyo ganacsiga waxaana warkiisa iyo wanaagiisa uu gaaray dadkii ganacsatada reer Makka waxaana kamid ahayd Khadiija oo ahayd
ganacsato oo taajirad ahayd. kadib nabiga waxa uu bilaabay in uu iyada u shaqeeyo, kadibna waxa ay u dirtay safar ganacsi iyadoo raacisay wiil iyada adoon u ahaa nabiga. safarkii ayuu aaday, waxa uuna ka soo laabtay isagoo soo faa'iiday. markii uu soo laabtay, wiilkii la socday nabiga waxa uu ugu sheekeeyay Khadiijo nabiga wanaagiisa. kadib Khadiijo waxa ay nabiga u soo bandhigtay guur isagoo markaasi ah 25 sano jir, halka ayaduna ay tahay 40 sano jir. kadib nabiga waa uu guursaday Khadiija ayadoo u dhashay caruur badan, waxaana ka mid ah caruurtii ay u dhashay Faatima, Ruqiyo, Zaynab iyo Ummu Kalthum. nabiga nabinimadiisu waxa ay bilaabatay markii uu gaaray da'da 40 sano jir, isagoo maalin ku cibaadeysanaya godka Xiraa ee buurta Jabal al-Nuur ku soo degtay Jibriil isagoo ku yiri iqra. kadib nabigu waxa uu noqday mid naxay, waxa uu u cararay gurigiisa. halkaasi Khadiijo oo nabiga ku dajisay una cadeysay inuu Alle doortay. tan iyo markaasi waxa uu bilaabay nabiga inuu dadka ugu yeero kelinimada Alle iyo in ay ka tagaan in ay caabudaan sanamka. nabiga dacwadiisa markay bilaabatay, isaga iyo asxaabtiisa waxa ay la kulmeen dhibaatooyin badan oo kaga imaanayay madaxda reer Quraysh iyo dadkii diidanaa diinta Islaamka, waxaana lagu eedeeyay in nabiga uu jibiyay dhaqankii awoowayaashiisa uuna keensaday wax iyaga ku cusub, waxayna jirdil iyo takoorid ku sameeyeen dadkii saboolka ahaa iyo dadkii ku cusbaa diinta Islaamka. nabiga wuxuu ku amray qaar ka mid ah asxaabtiisa in ay u hijroodaan dhulka Xabasha ama Itoobiya si ay u helaan magangelyo iyo nabad. boqor Najaasi oo markaas ahaa boqorkii Xabasha ayaa si nabad leh u soo dhabeeyay muslimiinta, isagoo diiday in uu ku wareejiyo reer Quraysh abtii nabiga si ay ugu celiyaan dhanka iyo Makka. markii cadaadisku sii xoogeystay, Alle waxa uu u ogolaaday muslimiinta in ay u hijroodaan magaalada Madiina oo markaas loo yaqaanay Yathrib. nabiga waxa uu ka helay meeshaasi soo dhabeyn iyo taageero xoogan dadkii Madiina, gaar ahaan Ansaar oo ahaa dadkii u nasteexeeyay Islaamka iyo muhaajiriinta ee ka yimid dhanka iyo Makka. hijradaasi waxay calaamad u noqotay bilowgii sanadkii hijriyada iyo dhismaha dawladda Islaamka. Madiina waxa laga dhisay masjidkii ugu horeeyay ee muslimiinta ku cibaadaystaan, waxaana la sameeyay ahdiyo nabadeed oo ay wada galeen muslimiinta iyo dadkii kale ee deganaa Madiina sida Yahuudi iyo Nasaarada. nabiga iyo asxaabtiisa waxa ay wajaheen dagaalo badan oo ku saleysan difaaca diinta Islaamka iyo difaaca muslimiinta. dagaalkii ugu horeeyay ee dhaca waxa uu ahaa dagaalkii Badr oo Alle waxa uu siiyay guusha muslimiinta, waxa ayna ka soo horjeedeen Quraysh. kadib waxa dhacay dagaalo kale sida dagaalkii Uhud iyo dagaalkii Xandaq oo Quraysh iyo xulafadoodu waxa ay isku dayeen in ay burburiyaan magaalada Madiina. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxa uu mar walba ku tiirsanaa Alle iyo cibaadadiisa, isagoo dadka ugu wacdin jiray inay samraan oo aanay marnaba ka leexan wadada xaqa ah. sanadkii lixaad ee hijriyada, nabiga waxa uu heshiis nabadeed la galay Quraysh kaasoo loo yaqaanay heshiiskii Xudaybiya. heshiiskaasi waxa uu suurageliyay in ay muslimiinta si nabad ah ugu soo xijiyaan Makka. kadib 2 sano waxa uu noqday mid muslimiinta u suurageliyay in ay ku faafiyaan diinta Islaamka xornimo buuxda. sanadkii 8aad ee hijriyada, muslimiinta waxa ay u ruqaansadeen Makka oo ay qabsadeen iyadoo aanan dhiig ku daadanin. Makka waxa laga nadiifiyay sanamyadii oo dhan, waxaana laga dhisay Kacbada. waxa uu ku adkeeyay muslimiinta in ay dhowraan diinta, xuquuqda dadka iyo cadaaladana ay ka shaqeeyaan. nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu ku geeriyooday Madiina sanadkii 11aad ee hijriyada isagoo 63 sano jir ah. geeridiisana waxa ay ahayd murugo aad u weyn oo ku dhacday muslimiinta, balse waxa uu ka tagay diinta Islaamka oo ahayd mid barwaaqo ah oo faafisay iftiinka hanuunka iyo cadaaladda. nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu tusaale u ahaa qofka Alle u dhow, waxa uuna ahaa mid naxariis leh, dulqaad badan, geesina ah, sidoo kalena hanuuniyo. qisadiisana waxa ayna baraysaa kalsoonida Alle, daacadnimada iyo cadaaladda, samirka iyo dulqaadka, hogaaminta iyo qancinta dadka. qisada Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxay si qoto dheer ah u qeexaysaa jihada iyo jidka xaqa ah ee qof kasta oo muslim ah uu ku socon karo iyo sida uu u gaari karo raali ahaanshiyaha Alle iyo guusha aakhiro. haddii aan dhahno waxaan ka hadlaynaa qisadii nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hal muuqaal kuma soo koobi karno, laakiin waxaan isku daynay sida ugu fudud ee aan ku soo koobi karno in aan ku soo koobno. haddaba isku day in aad ka mid noqoto asxaabta nagu xiran oo ciwaanka subscribe saaro si ay ku soo gaaraan muuqaalada badan ee aan soo badno oo ku saabsan diiniga.